بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subaxdan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan baranaynaa ducada haddii aada akhriso xanuun kasto ama sixir ama jinni hadduu ku hayo xitaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa kaafinayo. waa duco aada u weyn, waa duco madax u ah ducooyinka oo dhan. ducadaasi marka waxaan ka horumarinayaa qiso yar oo kooban. qisadaas oo sharxayso oo nin sheekh ah ka sheekeeyey oo sharxayso ducadan awooddeeda intay la eg tahay. sheekhaasi wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa sheekh ayaa waxaa loogu yeeray gabar laga shakiyey sixir inuu hayo, sixirkaasna uu jini wato. sheekhii gabadhii ayuu u tegey, gurigii u tegey. gabadhii markuu arkay inay sixran tahay ayaa waxa uu ku akhriyey alruqya sharciya. aruqya sharciya waxa waaye ducooyinka qaar iyo aayado qaar ah oo lagu akhriyo qofka xanuunsan. aayadaha waxaa ka mid ah suuratu alfaatixa. aayadaha waxaa ka mid ah 5 aayad ugu horeysa ee suuratu albaqara. aayadaha waxaa ka mid ah aayatulkursi iyo 2 aayadood ku xigta laga bilaabo laa ilaha illa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum ilaa aayadda allahu waliyu aladiina aamanuu. waxaa ka mid aayadaas 3 aayado ugu dambeysa suuratu albaqara oo ka bilaabato lilahi ma fi samaawaati wama fi lard ilaa dhamaadka suuratu albaqara laa yukalifu allahu nafsan. aayadahaas waxaa ka mid ah waya khaasatan marka oo qofka la tuhunsan yahay sixirna inuu ku dhacay, jinina in sixirkaasi uu wato ama jini qofka inuu ku jiro. suuratuljini ayaa la akhriyaa, suuratu saafaad ayaa la akhriyaa. waxaa la akhriyaa low anzalna hada alqur'aana calaa jabal lara'aytahu, suuratu alxashr dhamaadkeeda. waxaa kaloo la akhriyaa suuradaha hoose. bacd alculamaa waxay dhahaan waxaa laga bilaabaa suuratu lkawthar ilaa dhamaadka marka lasoo gaaro qul huwa allahu axad 3 jeer. sheekhi calaa kuli xaal alruqya asharciya ayuu ku akhriyay haweentii xanuunsaneed oo aada u xanuunsaneed oo dhakhtar kasta loo geeyey oo dhakhtar kasta uu daweyn waayey. markaas sheekha markuu ku akhriyay alruqya sharciya ducooyinkiina wuu akhriyey. adhab ilba'sa raba annaas ishfiha anta shaafi laa shifaa ilaa shifauka shifaan laa yuqaadir saqma nas'al allah alcadiim rab alcarshi alcadiima an yashfiyaha allahuma ina nacuudu bicizatika wabiqudratika min shari ma tajidina watuxaadirin. ducooyinka ashifaa iyo aayadihii marka suuradihii markuu akrinaya markuu soo gaaray marka hore jiniga wuu hadlay, wuxuu aqoonsaday inuusan jini keliya ahayn oo uu ka mid yahay maradatu shayaatiin, jiniga kuwooda ugu waaweyn inuu ka mid yahay gabadhan waxa hayo. wuuna hadlay, wuuna isa sheegay. wuxuu dhahay intaa kelima, wuxuuna dhahay mana ka baxayo. markii oo sheekha marka wuxuu dhahay ana kaama joojinayo qur-aanka iyo ducooyinka. markaasi waxaa dhacday sheekhi qur-aanka markii aayadaha oo awraadda oo meelaha kala duwan uu ka soo qaadanayo markuu soo gaaray suuratu saafaat aayadda 7 markuu soo gaaray wa xifdan min kuli shaytaanin maarid, meeshaasuu jinigu ku qayliyey. marka qaylo oo xanuun aad ka dareemaysid oo xoog badan markuu qayliyey ayaa wuxuu yidhi halkaa ku jooji waa ka baxaya. marka sheekha uu yidhi okay ilaa aad ka baxdo makaa joojinaya
ayaa jinigii marka shardi uu sameeyey. wuxuu yidhi waa ka baxayaa mana ku soo noqonayo laakiin bishard adaan ku gelayaa uu yidhi. markaasaa wuxuu yidhi sheekhi waa ogolahay haddaa shardigaasi aada oofinaysid. wuxuu dhahay waa oofinaya waa ka baxayaa mar dambe kuma soo noqonayo laakiin adaan ku gelaya. sheekhi marka wuu ogolaaday marka wuxuu dhahay waayahay ka bax kadib markaas anay soo gal. marka sheekhi qur-aankuu sii watay wuu ka soo baxay. markuu ka soo baxay gabadhii way degtay. markaasi kadib dhawaaq ayaa la maqlay marka codkii jiniga oo dhahayo sheekhu gabadhin waa ka soo baxay waana ku geli la'ahay. markaasaa wuxuu yidhi sootii aad dhahday adaan ku gelaya maxaad ii geli weyse. wuxuu yidhi waa ku geli la'ahay sababtoo ah subaxdan 100 jeer ayaad waxaad akhrisatay salaada subax kadib laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. ducadaas akhrisatuu dhahay 100 jeer marka kuma geli karo jinniga meeshuu isaga cararay. marka halkan waaye halka aan rabo inaan dul istaago. ducadan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis saxiix wuxuu ku yidhi qofkii 100 jeer akhrista salaada subax kadib wuxuu helayaa kow wuxuu la mid yahay qof 100 addoon ah inuu soo gatay uu xoreeyey. hadda kaba soo qaad 100 addoon ah addoonkii aad ka soo bixisay $100,000 10 addoon ah raalli ahaada 10 addoon ah oo midkiiba aad ka soo bixisay $100,000 oo kadib aad xoreysay waa adigoo $1 milyan sadaqaystay maalin kasta. soddonki waa 30 maalmood waa $30 milyan adoo sadaqaystay. ka waran miisaanka xasanaadkaaga intuu la ekaanayo. marka xadiisku wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii 100 jeer salaada subax akhriya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. riwaayad kale ayaa waxay leedahay qofkii markuu soo kaco oo ducadaasi uu akhristo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim rabbi ikfir lii. kow waa loo dembi dhaafaya qofkaasi. 2 wuxuu weydiisto waa la siinayaa. 100 jeer hadduu akhriyo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. kow wuxuu la mid yahay isagoo maalintaasi 10 qoor uu xoreeyey. 10 qofood oo xoreeyey oo addooman ah. maanta ma jira laakiin qiimihiisa ajra uu helayaa waa kow. 100 xasanaad ayaa miisaankiisa xasanaadka loogu qorayaa kitaabkiisa loogu qorayaa oo miisaanka xasanaadkiisa ay u buuxinayaan waa 2. 3 100 dembi uu galay ayaa laga tirtirayaa waa midda 3aad. 100 dembi uu galay ayaa laga tirtirayaa. 4 100 darajo meesha hadda uu taagnaa 100 darajo kor u kacayaa oo ilaahay uu usii dhowaanaya qofkaasi. 5 maalintaas oo dhan waxaa laga ilaalinayaa shaydaan inuu raad ku yeesho noocu doona ha ahaada shaytaanuljin iyo shaytaanuulins. halkaas waa marka halka sheekadii shaydaanka jinniga aan ka sheekeynaya oo jiniyada ku waaweyn ahaa kari waayey sheekhi inuu galo. sababtaa sheekha subaxdii salaada subax kadib ayaa wuxuu akhristay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir 100 jeer. marka waxaan nafteeda iyo idinkula dardaarmayaa ilmihiin inaad bartaan, xaasaskiin inaad bartaan, asxaabtiin inaad bartaan ducadan inaad faafisaan oo qofka gurigiisu ku ilaashado, naftiisu ku ilaashado, xaaskiisu ku ilaashado, ilmihiisu ku ilaashado, mustaqbalkiisu ku ilaashado. waa ducada ugu baraka badan waayo waa tawxiid. laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo ma jiro, la hoos yimaado, wax la weydiisto, laga cabsado, laga dambeeyo, laga amar qaato ila allah ilaahay maahine. waxdahu keligiis laa shariika lah wax lala wadaajiyo ma jiro.
oo awoodda ilaahay awood lamida leh. ilaahay wuxuu bixiyo wax lamida bixin kara, wax ilaahay lamida ma laha. lahu lmulku, wax walba oo adduunka yaalo oo dhan oo milki ah oo la lahaan karo oo dhan isaga keliyaa leh, isagaa baxshay haddaad haysato xitaa. walahu alxamdu, mahad oo dhan noocay doonto ha ahaato oo qof aad ku mahdiso ama cid wax ku siisay asay u noqonaysaa, isaga keliyaa leh mahaddaasi. wa huwa calaa kulli shayin qadiir, ilaahay waxa waaye kan wax walba kara, wax walba oo dhan isagaa karo, xanuun oo dhan isagaa kaa qaadi karo. haddii oo shaqo raadinaysa shaqada aad rabto isagaa ku siin karo. haddii xanuun ku hayo, waxaa ula jeedaa culays ku saaraya ama kurba ku haysto, kurba oo dhan isagaa kaa qaadi karo. ducadaasi waa ducada ducooyinka oo dhan muftax u ah. baro micnaheeda faham, xifdi, faafi, adna ajir ayaad ka heli. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.